ayaa laga helay HIV intii u dhaxaysay November sanadkii 2024 ilaa October 2025 taasoo banaanka keentay dayacaad caafimaad oo baahsan oo ka jirta qaybta caruurta ee isbitaalka dawladdu leedahay oo ku yaala gobolka Punjab ee dalka Pakistan. Sanadkii 2025 isbitaalka Tunza Sharif oo magaalada Tunza ku yaala ayaa la xiriiriyay faafinta fayruska HIV ee ay u dhiban yihiin caruur badan. Dhaqaatiir ka shaqeeya xarumo gaar loo leeyahay ayaa dareemay in caruur badan oo laga helay fayruska HIV horey loogu soo daweeyay isbitaalka dawladdu leedahay ee Tunza Sharif. waxaa dhashay shaki ah in irbado aan nadiif ahayn loo adeegsaday iyadoo waalidiintu ay sheegeen in irbado dhiig leh dib loogu duray caruurtooda. Maamulka caafimaadka ee Punjab oo qirtay inay 106 caruur ahi caabuqa qaadeen ayaa shaqada ka joojiyay maamulihii isbitaalka bishii Maarso 2025 balse xog ogaal ka tirsan isbitaalka ayaa BBC-da u sheegay inaysan waxba isbedelin. Dabayaaqadii 2025 kooxda BBC-da oo adeegsanaysa kaamirada qarsoon ayaa muddo toddobaadyo ah gudaha u gashay qaybta caruurta. Muuqaalada la duubay ayaa muujiyay falal naxdin leh. Waxaa la arkay kalkaaliyayaal bukaanada cirbado kaga mudaya dhabarka dushooda, cirbado wasaq ah oo dib loo isticmaalayo, iyo dad mutadawiciin ah oo aan aqoon u lahayn caafimaadka oo howlihii lafdhabarka u ahaa iyaga qabanaya. Shaqaalayarida iyo agab la'aanta ayaa keentay in hal cirbad ama hal dhalo oo dawo ah la wadaajiyo bukaano badan si looga badbaado gabaabsiga agabka caafimaadka ee isbitaalka. Waxaa xusud mudan in waalidiinta caruurtaasi oo baaritaano lagu sameeyay 5% ay qabaan fayruska, taas oo xoojinaysa in caruurta loogu gudbiyay gudaha isbitaalka. Maamulaha cusub ee isbitaalka Dr. Qasim Buzdar ayaa dafiraad kala hor yimid muuqaalada isagoo ku andacooday in laga yaabo in la farsameeyay. Sidoo kale maamulihii hore Dr. Tayyab Jandio ayaa iska fogeeyay mas'uuliyadda iyadoo la ogaaday in toddobaadyo kadib markii shaqada laga joojiyay dib looga shaqaaleeyay xarun kale oo caafimaad oo caruurta lagu daweeyo. Taniyo maanta 9 caruur ayaa u dhintay cudurka iyadoo 19 xaaladood oo cusub la helay 4 bilood ee u dambeeyay. Maxamed Amiin wuxuu ahaa 8 jir kadib markii uu u geeriyooday cudurka HIV/AIDS-ka oo laga helay. Qandhada ayaa ku xumaatay heer uu ku adkaysto inuu roobka dhex seexdo si uu u qaboobo. hooyadiis waxay tiri wuxuu ugu dhex gadgadoomi jiray sida isagoo lagu dhex tuuray saliid kulul. Maanta walaashiis Asma oo 10 jir ah lafteeda waxaa laga helay HIV. Qoysku waxay rumaysan yihiin in caruurtu fayruska ka qaadeen isbitaalka dawladda halkaas oo cirbado wasaqaysan loo adeegsaday. Asma hadda waxay lumisay miisaankeedii waxayna wajahaysaa nolol dhan oo dawo ah iyo takoor bulsho. Dariskooda waxay u diideen caruurtooda inay la ciyaarto. Waxay hooyadeed weydiisay maxaa ay ugu dhacay oo qaldan. Inkasta oo caqabado nololeed ay wajahayso haddana hamigeedu ma dhiman. Markaan weynaado waxaan rabaa inaan noqdo dhakhtar ayay hadalkeeda ku soo gunaanuday. Dibadbaxyada ka dhanka ah dambiilayaasha salfaday nolosha caruurtan ayaa gilgilay magaalada Tunza taas oo aan ilaa iyo hadda aysan ku helin jawaab ay ku qancaan.